السلام الله عليكم أصحاب الكرة دمانتين أدبو سلامتهين وأصحابكم أحمد عبد الله muuqaalkan waxaan doonayaa inaan kaga hadlo waxa loo yaqaan portfolio habka loo samaysto iyo muhiimadeeda portfolio haddii aan af Soomaali ku sharaxno waa diiwaan ama waa coinankii aad maal gashatay ama aad ka trade gareynaysay oo aad meel isugu keentay si marka aad la socoto dhaqaaqooda yani intay faa'iido ku keeneen intay khasaare ku keeneen yani waa inaad la socotaa طبعا waad ku khasbantahay inaad la socoto maadaama aad tahay investor ama trader mid ka doonto noqo laakiin waa inaad la socotaa yani wixii aad maal gashatay xagee marayaan coinankaagii aad xulatay aad soo urursatay intee faa'iido ay ku jiraan intee khasaare ku jirta waxaas oo dhan waa inaad ogtahay marka portfolio shaqadaas ay qabataa runtii aad bay u sahlan tahay loo samaysto waa very simple meelo badan baan runtii bixiya oo application badan baa laga samaysan karaa portfolio-ha laakiin anigu waxaan jeclahay midka uu bixiyo application-ka runtii aadka u muhiimka ee coin market cap oo horteena hadda ka muuqda si marka aad portfolio u samaysato waxaad geli doontaa qaybtan hoose ay ku qoran tahay portfolio kadibna halkan uu ku keeni doonaa meeshan ay ku qoran tahay add transaction ayaynu ku sii dhufan doonaa qaybtan ayaynu soo galnay qaybtan waxaa ku jira coinankii ayaa ku jira marka dabcan coinankii adigu aad doonaysay inaad portfolio ku darsato ayaad qaybtan sare search-ka ka baari doontaa marka hadda anigu tusaale waxaan ku bixinaynaa kuwan ugu horeeya bitcoin baynu ka bilaabaynaa dhowr coin baynu ku darsan doonaa marka bitcoin baan ka bilaabi doonaa iyadaan ku dhufan doonaa qaybtan baynu nimi qaybtan halka sare waxaad ku aragtaa saddex option buy sell iyo transfer marka waa inay kuugu taagan tahay had iyo jeerba buy halkan hadda bitcoin ku qoran tahay waxaa lagaa doonayaa inaad geliso inta xaba ee bitcoin aad ka iibsatay marka waxaad u gelin kartaa bitcoin ahaan iyo dollar ahaan hadda tusaale hadda bitcoin calaamadii bitcoin kan aragnaa haddaad doonaysa inaad dollar ahaan u geliso labadan fallaarood isdhaafaya meeshan ku qoran tahay USD ayaynu ku dhufan doonaa kadibna calaamadii dollarka ay noo timi kadibna waxaad gelin doontaa yani intii dollar aad ku iibsatay laakiin tusaale ahaan bitcoin ahaan baynu gelinaynaa adigu kolba kaa doontaad u gelinaysaa kolba kii ku fudud tusaalahan waxaad ka soo qaadaa in aynu iibsanay nus bitcoin 0.5 markaynu intaa gelino waxaanu geli doonaa meeshan ay ku qoran tahay price per coin oo muhiim ah qaybtan waxaa lagaa doonayaa inaad geliso price-kii la marayay markii aad iibsanaysay bitcoin price-kii ay maraysay markii aad iibsanaysay ayaa lagaa rabaa oo sax ah inaad bartan geliso marka tusaale ahaan waxaad ka soo qaadaa inaynu bitcoin ka soo galnay 20,000 kadibna waxaan ku dhufan doonaa update price meelahan kale dabcan waxbaad ka bedeli kartaa sida tusaale ahaan date-ka oo kale hadda tusaale ahaan today bay noogu taagan tahay xilligan aynu gelinayno ayay maaragtay noogu taagan tahay laakiin haddaad coinka xilli hore iibsatay oo aad rabto hadda inaad diiwaan gashato waad soo furi kartaa kadibna waxaad ka dooran kartaa markaa taariikhdii aad iibsatay adigoo dabcan ka soo eegaya exchange-ka aad ka iibsatay qaybta order history-ga intaad gasho ayaad ka helaysaa xilligii aad iibsatay iyo fiiga lagaa qaaday iyo macluumaadkaas oo dhan marka waad gelin kartaa laakiin muhiim maaha haddaad ka tagtana waxba kaama khaldamayaan halkan ay fee ku qoran tahay iyadana fiiga lagaa qaaday baad gelin doontaa adoo ka soo eegaya dabcan exchange-ka qaybta note ay ku qoran tahay haddaad doonaysa inaad note ka samayso iyadana waad ku qori doontaa laakiin waxa ugu muhiimsan uun inaad geliso coinka intii xabaad iibsatay iyo meeshaad ka iibsatay muhiimadda weyn waa intaas inta haddaad saxdo waxaan dabadna aad ku dhufan doontaa add transaction marka hadda bitcoin-kii wuxuu noo soo galay portfolio-heeni buu noo soo galay qaybtan ugu sareysa waxaad ku arkaysaan 9,812 oo micnaheedu yahay lafihii iyo faa'iidadii oo isku jira faa'iidadii bitcoin-ku inoo keentay maadaama 20,000 ay ka soo galnay haddana aynu ognay meesha la marayo faa'iidadii ay noo keentay bitcoin-ku iyo lafihii meesha inaga jira ama lacagtii markii hore aanu ku iibsanay oo la isku daray
ayaa waxay tahay markaa 9,500 iyo 800 halkan hoose waxaad ka arkaysaa intaynu iibsanay waxaynu iibsanay 0.5 bitcoin oo markaa aynu ku iibsanay $10,000 intaynaan qaybaha kale u gudbin aynu ku darsanno markaa coin kale ama dhowr coin oo kale si aynu si wanaagsan maaragtay ugu sharaxno marka plus baad ku dhufan doontaa kadibna tusaale ahaan ethereum baan ku daraynaa ethereum waxaad ka soo qaadaa inaan marsalan iibsaday 2 ethereum price-ku markuu marayay tusaale ahaan 4,000 oo kale khasaaraynu isgelinaynaa si markaa aynu u eegno bal hadda kadibna update price kadibna add transaction okay ethereum way noo soo gashay waxaad arkaysaa halkii sareyna korodhay way hadda noqotay 67,215 marka dabcan halkaas sare waa portfolio-haaga oo dhan ayay noqon doontaa hadba inta lacag kugu jirta haddii khasaare kugu dhaco way kaa yaraan doontaa haddii faa'iida kuu timaadana halkaas way badan doontaa marka halkaa si guud baad ula socon doontaa maaragtay portfolio-haaga ama lacagtaada intaad haysato bal coin saddexaad aynu ku darno tusaale ahaan aynu iskaga darnaba XRP waxaad ka soo qaadaaba inaynu iibsanay 100 XRP ama kunba ka dhig waxaad doontaad ka dhigi kartaa dabcan laakiin dee waxaad adigu markaad samaysanaysid waxaad ka dhiganaysaa wixii rasmiga ahaa aad iibsatay baad ka dhigaysaa adoon waxbana ka dhimaynin waxbana ku daraynin price per coin-kana aynu ka dhigno tusaale hadda waxay maraysaa $3 iyo 3 city marka waxaad ka dhigtaa inaynu ka iibsanay $2 kadibna update price kadibna add transaction waad ujeedaan meesha waa korodhay 70,000 bay hadda maraysaa portfolio-heenu dabcan qaybtaas aan idiin sheegay waxaad ka eegaysaa qaybtan ay ku qoran tahay transactions coin kasta intii xabaad haysatay iyo intii kaaga baxday runtii aad bay muhiim u tahay tusaale hadda 1,000 waxaynu iibsanay XRP-ya $2,000 baynu ku iibsanay ethereum waxaynu iibsanay maaragtay 2 ethereum $8,000 baynu ku iibsanay bitcoin-kana 0.5 bitcoin-a 10,000 baynu ku iibsanay marka inaga baxday marka qaybtani intaasay qabataa haddaynu ku dhufanno meeshan ku qoran tahay overview qaybtan iyadu qudheedu dhowr waxay usii kala baxaysaa option meel waa holdings meelna waa all time profit iyo allocation marka qaybtan ugu horeysa waa chartkii yacni waxaa lagugu tusayaa chart ahaan portfolio-haagu maaragtay xaaladeeda marka tusaale ahaan 90kii maalmada ugu dambeysay ee hadda inoogu taagan tahay marka waad arkaysaan portfolio-heenu sare u kacday oo dabcan maadaama 2 coin aynu faa'iido ku jirno weliba bitcoin-ka aynu faa'iido weyn ku jirno portfolio-heenu maaragtay si wanaagsan bay u kacday haddaynu eegno 24 hour-ka ama 24kii saacadood maxaa dhacay waxaad arkaysaa in hoos u dhac jiro maadaama suuqa hadda hoos u dhacay hoos u dhacana wuxuu sheegayaa faa'iidada bay naga yaraatay saa darteed ayaa hoos u dhacan u yimi haddaad all ku dhufato dabcan waad arkaysaan garaafku maaragtay inaanu si wanaagsan u faa'iidnay laakiin hadda xoogaa yar lasoo laabtay marka qaybta intaasay qabataa dabcan halkana waxaa laguu sheegayaa coinankii iyo mid kasta faa'iidada aad ku jirto marka lagu daro lafaha marka tusaale hadda bitcoin-ka oo kale 9,802 ayaynu ku jirnaa laakiin waxaa ku jira meesha 10,000 kun marka hore ku iibsanay baa ku jira waana saa ula socotaa markasta qaybtan markaad ku jirto ethereum-ka oo kale maadaama aynu khasaare ku jirnay ethereum-ka $8,000 baa aynu ku iibsanay laakiin hadda maxaynu haysanaa 7,417 marka khasaare aynu ku jirnaa XRP iyada 3,529 baynu ku jirnaa qaybtani markaa waa intaas haddaynu tagno qaybtan all time profit qaybtan waxaa laynagu siiyey faa'iidadii keliyata marka haddaad halkan eegto faa'iidadeennu waxa weeyaan
50,749 marka waa faa'iidadii keliyaata marka dabcan dee waad arkaysaaba bitcoin ayaaba 49,802 aynu ka faa'iidnay halka XRP na 1,529 aynu ka faa'iidnay marka qaybtan waa faa'iidadii kuma jirto haba yaraatee lafihii ethereumna waa xalin tusay intii aanu khasaarnay oo 582 marka qaybtan intaasay qabataa qaybtan allocation haddaynu ku dhufanno qaybtan waxaa garaaf ahaan lagu tusayaa portfolioheena yani percentage ahaan coinku intay helayaan marka hadda tusaale ahaan waxaad arkaysaan bitcoin ayaa ugu weyn oo 84 boqolkiiba portfolioheena waa bitcoin halka ethereum ku xigto oo ay ka tahay 10 boqolkiiba XRP baa ugu yar waa 4 adigu 5 boqolkiiba ku dhowdahay marka qaybtana dabcan waxaad doonaysaa inaad ogaato portfolio-haaga yaa u badan ayaad ka eegaysaa waxayna tahay inay aada u sahlan tahay qaabka portfolio loo samaysto iyo sida coinka loogu darsado portfolio-huna runtii aad buu muhiim u yahay saynu soo sheegnay waa inaad la socotaa meeshan wixii aad ka faa'iiday waxaad ka khasaartay haddii aanad laba soconin sida dadka qaarkood oo iska iibsada uun aan aqoon u lahayn wixii aan ogeynba maaragtay intii meesha ay geliyeen iyo intay faa'iideen iyo waxba aan kala ogeyn haddaad saa noqoto dee dabcan waxaad noqonaysaa qof ciyaaraya oo dabcan ma noqon doontid ganacsade guulaysta ganacsi kastoo guulaystaana waa inuu leeyahay diiwaangelin waa inaad la socotaa faa'iidadaada iyo khasaarahaaga waa inaad og tahay si markaa aad u guulaysato waxay ka xasuusinaa inay jiraan macallimiin tuug ah oo intay soo samaystaan portfolio noocan oo kale ah oo dabcan hadda halkan 70,000 bay noogu jirtaa 70,000 micnaheedu maaha inaanu haysano haddaynu samayno waad arkayseen portfolio waxay taraagaraysaan wixii aad meesha geliso laakiin micnaheedu maaha lacag dhaba maaha marka rag waxaa jira waxaan oo kala samaysta si markaa ay dhalinyarada ugu khalkhaliyaan oo ay isaga dhigaan markaa inay malaayiin dollar haystaan hadda tusaale ahaan malaayiin dollar baan aynu gashan karnaa innagaa isu haynaa laakiin dee lacag runa ma aha oo waa lacag maaragtay uun lagu talagalay inay taraagarayso hadba wixii meesha aad geliso marka dad noocaa ku shaqaysta baa jira dad waxaa jira samaysta weelatiyo been abuura oo iska dhiga inay lacag aad u badan haystaan farsamooyinkaas oo dhan baa jira waxyaabahaasuna waa scam loogu talagalay markaa in dhalinyarada lagu scam gareeyo si koolas looga iibiyo markaa taana iska jira suuqan kriptada runtii scamyo badan baa ka jira waxyaalo badan baa ka jira had iyo jeer waa inaad maskaxda maashaa waa inaad research samaysaa waa inaad wax baadhaa laakiin haddaad noqoto qof caamo ah waxba aan kala ogeyn waa laga faa'iidaysanayaa oo macallinkan beenta kuu sheegaya ee portfolio-ha been abuurkaa kuu samaystay sawirada quruxda badan le meelaha kugu soo gelaya wuxuu ku socdaa adiga jeebkaa ku socdaa wuxuu doonayaa inuu ku dhiig mirto kolba course kaa iibiyo mar basic kaa iibiyo intermediate kaa iibiyo haddana advance kaa iibiyo haddana ku yidhahdo psychology-gaagaan dhisaya course kala qaado haddana risk management baa lagu barayaa course kale haddana waxyaabo kale yacni waxaa la doonayaa in adiga lagu dhiig mirto intaa lagu indhasar caadiyo oo waxyaabahan oo kale lagu samaysto kadibna iimaankaa soo dhaco marka akhyaarta iska ilaaliya scamka waxbarashada waan dhiirigelinayaa waxbarashadu aad bay muhiim u tahay laakiinse dee qofkaad wax ka baranaysaa waa inuu yahay qof runta kuu sheegaya si caadiya wax kuu baraya laakiin aan ku waalaynin ku khiyaanaynin been abuur kuu samaynaynin waxaan jirin kuu dhisaynin wuxuu yaqaano ku bara qofkii kelmad ku bara runtii waa qof abaal weyn kugu leh marka waxbarashadu waa muhiim in wax la barto laakiin ha la iska ilaaliyo qolooyinka iskaamka ee dadka loo gooya akhyaarta dhammaanteed baan salaamayaa muuqaalkan oo kale intaan ku kulmi doonno waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu